wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaal cusub oo ka dhex qarxay madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka iyo Kenya oo dagaalkan gadaal ka riixaysa khilaafka reer galbeedka iyo madaxweyne Farmaajo kadib hubkii la sheegay in Soomaaliya ay ka dalbatay Ukraine iyo ra'iisul wasaare Roble oo culays wajahaya xilli uu madaxweyne Farmaajo kala ceyriyay wasiirro ka socday dhanka ra'iisul wasaare Roble kuna adkaystay inuusan Roble u aqoonsanayn ra'iisul wasaare wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo beesha caalamka fariimo calaacal ah u diray kadib markii uu ku guuleysan waayay inuu nisa ka saaro airportka Aadan Cadde International Airport khilaafka ka dhex xaloosan baarlamaanka galmudug oo waji kala yeeshay iyo gudoomiye ka hor yimid shaqo joojintii lagu sameeyay dhanka kalena dagaal culus oo ka socda magaalada Beledweyne ee kaas oo u dhaxeeya saraakiisha badbaadada Hiiraan la baxay ee qarandumiska ah iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee Cali Jeyte qodobada arrimaha dibadda aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo duqeymo xoogan ka geystay magaalada Gaza qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad barnaamijkeena habeenimo ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambalaalka si aad u noqotid daawadaha koowaad ee barnaamijkeena dagaal culus oo ka dhex qarxay madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka iyo Kenya oo gadaal ka riixaysa khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo reer galbeedka kadib hubkii la sheegay in Soomaaliya ay ka dalbatay Ukraine madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka ayaa dagaal culus ka dhaxeeya baryahan dambe iyagoo waliba taageero culus u muujinaya ra'iisul wasaare Roble oo ay dhawaan isfara saareen isaga iyo madaxweyne Farmaajo khilaafka beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo ayaa salka ku haya beesha caalamka iyo qaar ka mid ah dalalka dadka la Soomaaliya ee cadawtinimada ka dhaxayso oo doonaya in kursiga laga saaro madaxweyne Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda kursiga joogo ayaa dagaal baan la galay beesha caalamka isagoo maalmo ka hor ka joojiyay terminalka qaybta ay ka isticmaali jireen isagoo xukuumaddiisu ay amar ku bixisay inay maraan meelaha ay maraan dadka shacabka ah dagaalka u dhaxeeya beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo ayaa soo jiitamayay muddo sanado ah tan iyo markii uu imaaday isagoo qaarkood ka eriyay shaqada kadib markii sida uu sheegay ay faragelin ku sameeyeen shaqooyinka arrimaha gudaha ee dalka madaxweyne Farmaajo ayaa inta badan lagu xasuustaa ama lagu yaqaanaa qabweynida isagoo aan u ogolaan qof aan Soomaali ahayn inuu xadgudub ku sameeyo gudaha dalka ha ahaato beesha caalamka iyo dalalka kale ee deeq-bixiyaasha ah ee Soomaaliya taageera beesha caalamka ayaa in badan doonaysay in madaxweyne Farmaajo uu madaxiisa hoos aadiyo iyagoo doonaya inay waxay rabaan ka sameystaan gudaha dalka balse madaxweyne Farmaajo uu diiday ayay hadda culays ku saarayaan inuu iska tago kursiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu xasuustaa ceyrintii uu ceyriyay Nicholas Haysom iyo sidoo kale inuu diiday in la xisaabiyo hubka kaydka qaranka oo kadibna uu ka guuray xaruntii hubka kaydka qaranka ee ku taalay Xalane iyadoo laga dhisay meel u dhow xeebta Lido dagaalkan hadda u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo qaar ka mid ah dalalka shisheeye ayaa salka ku hayo doonista ay doonayaan inay kursiga ka qaadaan madaxweyne Farmaajo si dalka waxa ay rabaan ay uga sameystaan dhacdadii hadda u dambeysay ayay ahayd kadib markii warbaahinta Kenya ay shaaciyeen in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay doonayso inay hub ka soo iibsato dalka Ukraine hubkaas oo ah mid aan wali laga isticmaalin qaaradda Afrika madaxweyne Farmaajo ayaa sanadihii dambe ku howlanaa dhisidda ciidanka iyo inuu soo iibiyo hub aan inta badan laga isticmaalin qaaradda Afrika sidoo kalena uu kordhiyo mushaaraadka ciidanka xoogga dalka iyo afarta kale ee ciidanka qalabka sida haddaba isqabqabsigan u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka ay doonayaan in warbaahinta Kenya loo isticmaalo si ay toosh u ifiso raadadka dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama aan loo ogolayn in Soomaaliya ay hub soo iibsato kadib cunaqabatayntii qaramada midoobay ay saartay walow laga qafiifiyay oo loo ogolaaday inay soo gadan karaan hubka qaar sida bistooladaha iyo AK-47ka 2018 ayay ahayd markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hub ka soo iibsatay Djibouti hubkaas oo sida la sheegay ay ka qabatay xeebaha Yemen oo loo wada Xuutiyiinta kadibna lagu soo wareejiyay Soomaaliya waliba si qarsoodi ah
haddaba isla xilligaas ay beesha caalamka iyo qaramada midoobay isku dayeen inay hubkaas baaris ku sameeyaan iyagoona dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka codsaday in la baaro xarunta hubka kaydka qaranka oo la ogaado inta hub ah ee taalo maadaama wixii madaxweyne farmaajo ka horreeyay u xisaabsanayeen hubkii yaalay gudaha kaydka qaranka sanadkii la soo dhaafay 2021 ayaa sida la sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Odwaa Yuusuf Raagi oo tagay dalka Turkiga waxa uu uga sii gudbay dalka Ukraine safar qarsoodi ah oo aan la shaacin kadibna wuxuu heshiis la soo saxiixday taliyaha ciidanka dalkaasi Ukraine oo hadda dagaal culus kula jira dalka ay dariska yihiin ee Russia. heshiiskan ayaa dhaqankiisu ahaa in la dhaqangeliyo bisha January ee sanadkan 27 bishan ayaa la rajeynayaa in hubka oo isugu jiro diyaarado baabuurta gaashaaman madaafiic iyo baabuurta fudud ee dagaalka iyo qeybo kamid ah qalabka lagu baaro miinooyinka inay soo gaaraan magaalada Muqdisho iyagoo horay sida la sheegay ay soo gaareen qalabkii fudfudaa balse baabuurta iyo diyaaradaha yaryar ee qaarkood aan duuliyaha lahayn la rajeynayo in markab ay leedahay dowladda Turkiga oo qandaraas la saxiixday Soomaaliya uu dhawaan keeno gudaha dalka isagoo ka soo dejinayo magaalada Muqdisho gaar ahaan dekeda Muqdisho Albert. dhanka kalena wasiirka amniga oo beesha caalamka fariimo calaacal u diray kadib markii uu ku guuleysan waayay inuu nisa ka saaro airportka. wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa qoraal u diray beesha caalamka uga hadlay go'aankiisa in ciidamada dharcadka ah ee nisa laga saaro gudaha madaarka magaalada Muqdisho ay ka howlgeli jireen. wasiirka ayaa amarka uu shalay soo saaray ku sheegay in ciidamada nisa ee ka howlgala gudaha airportka Aadan Cadde International Airport ay halkaasi ka baxaan. qoraalka wasiirku uu diray beesha caalamka ayuu ku sheegay in ciidamadaasi ay khalkhalgeliyeen cagajugleyn ku hayaan siyaasiyiinta iyo shacabka kale ee ka dhoofaya madaarka. Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku guuldareystay inuu amarkiisa ka dhaqan galo madaarka magaalada Muqdisho kadib markii uu Yaasiin Faray oo ah siihayaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. khilaafka ka dhex aloosan baarlamaanka Galmudug oo waji kala yeeshay iyo gudoomiyaha oo ka hor yimid shaqo joojinta lagu sameeyay. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Galmudug Cabdullaahi Xirsi Maxamed ayaa ka hor yimid go'aan isaga iyo xildhibaano kale looga joojiyay 4 fadhi oo kamid ah fadhiyada baarlamaanka. Cabdullaahi Xirsi ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ku eedeeyay inuu ku xadgudbay sharciga iyo xeeroosaadka maamulka isla markaana uu ku been abuurtay dastuurka Galmudug u yaala. qoraalka uu soo saaray ayuu Cabdullaahi Xirsi ku sheegay in gudoomiye Maxamed Nuur Gacal uu isticmaalay awood dheeraad ah oo uusan siinin xeeroosaadka baarlamaanka. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ayaa xildhibaanada ku baaqay inay u midoobaan sidii uga hortagi lahaayeen gudoomiye Gacal oo ku eedeeyay inuu soo saaray go'aan khalad ah.